maamulka dawladda hoose ee degmada Boorama oo horkacaya maayarka degmada Boorama Maxamed Xuseen Meedhane ayaa waxay bilaabeen wado cusub taas oo dhexmari doonta bartamaha magaalada Boorama. Dadani oo ay baahi weyn u qabeen dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama ayaa waxay wax weyn ka tari doontaa isku socodka gaadiidka u kala goosha gudaha magaalada Boorama. Ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay injineerada wadadani gacanta ku haya iyo qaar ka mid ah shacabka degan xaafadaasi ayaa waxay sheegeen maanta waxaan marakanahay oo aan taaganahay jidkii wadnaha Boorama oo runtii lagu shubayo daamurkii oo laami laga dhigayo. runtii waa horumar qiimo leh oo u soo kordhay bulshada reer Boorama iyadoo taasina aan gacan ka siinayno magaalada wadooyin badan baa xiran wadooyinkaasi in gacan lagu siiyo maamulka degmada in dadku ay u huraan naftooda in wadooyinka la furo. أنا سجارة شرفي قطعي هل كانوا بنام كبدة كعياريني وأنا قريها سي يوحنا إن الجيرين وبنان تاي أيام كبدة كعياري جنا باسيا سيرين جنا مركان يرين أدنى ما تورو فرحسنا يدو هالكي ودلهم يلا قبل حين يودني بورماي تاي قلت وسلام محمد شيقي وحويه وهالبولة ويا وضدني وودنيه بورما قلت ما يردي ماشي صومري يدق ماذا صومري في جوع قبض كبرنا hadda imika jooga meedhane runtii waan aqoonsanahay wax badan oo qabtay way jirtaa imikana waxaan u soconnaa wadadii galbeedka ee airport ka baxaysay oo 30 oo iyadna halka ku baxaysa hadaanu nahay shirkadda tech inaan ka qayb qaadano wadadaas oo laambadiskii iyo wadooyinkii iftiinkii ee magaalada iyo bilicdeedii anaguna arinta diyaar baan nahay markaan cartographic and land survey engineer baan ka ahay meesha waa maalintii ugu horeysay ee soo jiidatay wadada Boorama ka socota yani nin maayara oo ilaa isagu surveyera quantity control wax walba soo dhiga yani aad iyo aad ay noo soo jiidatay wadadani run ahaantii hawshan haynaa waa mas'uuliyadna saarnayd oo gudanayno runtii dadweynaha reer Boorama waxaan ugu baaqaynaa wada kasta oo sameeyno iyaga ayaa dila biyaha saabuunta leh ku shubayaan baana dila waxaan ugu baaqaynaa marka biyaha inay ka daayaan qofku aqalkiisa ka soo qaadaya laamadiisa aqalkiisa u qiimo gelisay ee ummaddu maraysay ayuu ku shubaya nabiguna in dariiqa wax la dhigaad ka qaada ayuu nafaray iimaankeena ka mid ah waa Jamaal Umar Tubeec telefishinka caalamiga BC 24 TV magaalada Boorama.